عبد الناصر بوني وعجلad lagu soo duubo codka muuse ka dibna loo daaro shacabka iyadoo isku maran waa amuurta ay ku saabsan tahay faalidan warku waana qalankii saararagsan muwaadin hadaad arki jirtay record la galiyo cajilad oo aad ka dhageysto heesaha qaraamka hadda waxaa maraya in qof dhan oo moodin ramud lagu hagayaa lagu soo duubo cod qof kale kadibna loo daaro ummadda iyadoo isku maran oo aan la kala shaandhayn taasoo hadhow keento cod xumo iyo cuudo dhagaha dhulka ku reebta waana waxa ay ka sameeyeen xukuumaddii hore ka bilow tinta ugu sareysa oo ahayd muuse ilaa faryarada bidix ee lugta oo ahayd buuni waxaan la sheegay qodobada waaweyn ee kulmiye ku baabay dadkiina kaga dareerisay inay ka mid tahay tan عبد الناصر بوني شخصي ahaan waa nin yaro gaaban oo kuusan muuqaal ahaan oo eeg falaasta shaaha hadana aqoon waana afayeenka xisbiga dhinaca qalaalay ka kalna la laadinaya kulmiye laguma sheegi karo mas'uul balse waa shakhsi la darsay baahiyo gaar oo ay ka mid yihiin afxumo aan loo meel deyn oo kula kaco madaxda xisbiyada mucaaradka ay uu la daba taagan yahay hablaha birmageeyada salaadiin cuqaal iyo culimo iyaga hadalkooda badaa qof ahaan ma aha qof maskaxiisu taam tahay markaad wareysto culimada darsa xaaladaha noocan oo kala ah ee uu ku sugan yahay waxa markiiba ku sheegayaan in dadka sidan dhaqmaahay yihiin hafijiin waana sababta cod kasto lagu soo duubo isagoo cabaysan oo aan shaandhada marin uu isula soo taago tiifiyada kadibna uu ugu neefsado shacabka waa qof caban oo haddii hadal la dhaho aan u adkaysan karin dadkii uu dalq lahaa isagoo ilmada daadinaya waxaanu ka mid yahay dadkii ay sheegaysay heestii ahayd ee odhanaysay